ma rabtaa in aad badbaaddo adduun iyo aakhiraba. soo dhawow inta aynan u guda galin mowduuca aynu ka hadlayno fadlan subscribe sar channelkeena dunida maanta ood mahadsantahay. badbaadadeennu waa inagoo ilaalina salaada. tusaale haddii aad tahay shaqaale u shaqeeya shirkad, organization ama company, waqtiga la imaanayana ay tahay 8 subaxnimo ama 2 saac oo subaxnimo. haddii maalinta koowaad aad soo daahdo 20 daqiiqo, maamulka goobtaas il gooni ah ayuu kugu eegayaa. haddii aad maalinka labaad soo daahdo, waa uu kula hadlayaa isaga oo ku dhahaya nidaamka u degan shirkadan ama hay'adan iyo waqtiga la soo galayay shaqada waa 8 subaxnimo ee ma aha 8 iyo barka ama 2 saac iyo bar. kadib haddii ay soo daahistaadu badato ayna soo noqnoqoto, waxa uu maamulka ku siinayaa digniin hadal ah ama qoraal ah. haddii aad ku sii socoto sidaadii horena, ugu dambeyn waxa lagugu wargelinayaa in hay'adaas ama shirkadaas aysan boos kaaga banaaneen oo shaqada waa laga ereeyaa. taasina waa shirkad bini'aadam uu leeyahay. ka waran kuwa sahwiya misana dib u dhiga adeecida rabbiga koonkan iska leh, marar badanna weliba dayaca salaada. marka aynu eegno dhalinyarada Soomaaliyeed, qaar ka mid ah ayaa marka salaada laga hadlo waxa loo qaybiyaa dhowr qaybood. mid aan gebi ahaanba tukan salaada, mid salaada markii la aqimo kadib masjidka aada oo ragcooyinka qaar ay dhaafaan, mid 5 salaadood 2 ama 3 kamid ah tukada oo aan wada tukan, mid toddobaadkii maalinta jimcaha ah tukada ama ramadaanka oo kaliya tukada, iyo kuwa xifdiya oo waliba ooga 5 salaadood waqtigeedana ku ilaaliya. Allah dhowro sidoo kalena Allah naga dhigo. sidoo xalkeen noqonaya oo uu ku toosayaa hadaynan ilaalin salaadaha. sideese bulshada tubta toosan u qaadaysa hadaysan oogin dhamaantood salaada, oo miyoosan ilaahayna dhihin salaadu waxay reebaysaa xumaanta iyo munkarka. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. waxaan nagu filan oo kaliya amarka rabbigeen. sidaynan u oogin salaada alla agtiisa qiimaha weyn ku leh, tiyo loo dheelmiyay rasuulkeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, si salaadaha loogu waajibiyo dadka muslimiinta ah. salaadu waa iftiin, waxaana hubaal ah haddii aad ka tagto in aad mugdi ku sugan tahay. ugu dambeyn, ma doonaysaa damaanad qaatumo wanaagsan ah? walaal, tuka salaadaha oo dhan, gaar ahaan salaada subax waqtigeeda ku ilaali, sababtoo ah maalinka oo dhan maganta eeba ayaad ku jirtaa. culimada qaarna waxa ay ku fasireen qofkii salaada subax jamaca ku tukada ee maalinka geeriyooda in uu ka mid yahay dadka ahlu jannaha ah insha Allah. gabdhaheena diinta ha la baro, si wanaagsanna ha loo baro, si ay noogu tarbiyeeyaan una soo saaraan rag iyo dumar diinta iyo dalkaba anfaca. badbaadadeennu waa inagoo ilaalina salaadaha, iyadoo maalinta qiyaamaha ah waxa ugu horeeya ee adoomada laga xisaabi doono ay tahay salaada. haddii uu guuleysto miisaankaaga oo imtixaanka salaadaha aad dhaafto, inta kalena waad dhaafaysaa insha Allah. waad ku mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga mowduucan. fadlan saaxiibada la sii wadaag.